qofka daawanayo muuqaalkan waxa jeclaan lahaa hadii adiga contact leedahay ama taqaano ina muuqaalkan aad u dirto waxaan jeclaan lahaa waliba wiilkaasi ina la xiriiro ma garanayo hadda waxay tahay laakiin waxaan jeclaan lahaa wali xitaa ina wax u hadiyeeyo wiilkaas السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada mar kale ku soo dhawaada muuqaal kale iyo walaalkiin saaxiibkiina Ismaan Hoosow. Muuqaalkan waxa uu ku saabsan yahay kaliya sharaad ama in oo maaragtay aan idin la wadaago channel qaar oo maaragtay dadkana aysan u badnayn oo laakiin aniga muuqaalada ay soo galshaan iyo hawlaha markaas dadka iska leh ay qabtaan aan ixtiraam ugu hayo. Haddii horta aad tahay qof oo YouTube channel leh oo dad ay ku daawadaan inta doonaan hala ekaadaan ama subscribers kaaga inta doonaan hala ekaadaan mar waliba horta waxa jiro dad markaasi ku weydiisanaya inaad sharaad u sameeyso oo waxay ku leeyihiin channelkaas community-ga idhig muxuu ahaa dadkii bar dadka yani hal ugu xirnaado dad badan kugu xirnaadaan ama ay kugu xirnaaneen intaba waan jeclahay in qofka markii maaragtay uu leeyahay hal abuur inaan markaasi aan ku caawiyo wixii markaasi aan ku caawin karo ee waqtiga aan u heli karaba marka eesaas tahay laakiin qof waliba maaragtay laakiin hadana wuxuu gooni uga sii helaa wax yani laga yaabo qofkan hadii muuqaal reaction oo sameeyay qof kale oo reaction sameeyay hadii muuqaal u soo dirsado yiraahdo ii share garay inuu u share gareyn karo laakiin aniga yani qof intuu muuqaal ii soo diro isaga ma share gareyn karo aniga markaasi muuqaalka aanan arkin waxa uu ku saabsan yahay oo waxa uu ku saabsan yahay markaasi ay qanciyaan oo aniga laftirkeyga baan ka helo markaasi sharaad iska daay yani qofkaasi xitaa wax kale iga istaahila wixii kale markaasi aan ku saacidi karo inaan ku saacido marka saddex channel aan soo qaadan doonaa saddexdan channel marka waxaan markaasi aan ka soo bilaabeynaa kor oo ah يعني kaalinta saddexaad channelka oo markaasi aan gelinayo aan rabo inaan dadka aan la wadaago waxa uu yahay channelkan waxa iska leh wiilkaasina waxa uu sameeyaa muuqaalo oo traveling ah ama safar uu sameeyaa marka meel uu tagaya ama qaarad kale ama wadan kale uu tagaya muuqaalo ka soo sameynaya yani taariikhaha meesha ay yihiin iyo waxyaabahaas uu ka sheekeynaya marka aad fiirisidna de channelkiisa inta badan 90% waxaad ku arkaysaa in ka badan muuqaaladiisa dhan inay safar yihiin magaalo yani meelba meel inay tahay waana wax aad u qurux badan runtii mana jirto yani haday jirtana ma badno Soomaali oo maaragtay markaasi oo traveler ah oo meesha markay ay tagaan ay ku soo duubayaan waliba kugu soo sameynayaan yani luqad Soomaali yani way dhib badan tahay qofka waa hobbigiisa waa ra'yigiisa waa hal abuurkiisa inuu intaasi sameeyo masalano wadan ka tag wadan kala tag meel kale maaragtay ii sheeg seexo ama hostel ama hotel wixii aad kireysata ama dad ku deg muuqaal ka soo sameey hadana meel kala tag yani way adag tahay in la sameeyo halka dad badan oo maaragtay hadda YouTube isticmaalana ay yihiin dad oo iska maaragtay hal meel in leerka lagu shito meeshaas aan laga dhamaaneyn marka yaanan idinku dheereen wiilkani channelkiisa waxa la yiraahdaa geedisahan aad uu channelka u fiican yahay qaabka aad ku socoto waxaan ku dhihi lahaa hore u soco wax oo dadka ay u baahan yihiin waaye oo maaragtay aadna maaragtay dad badan oo aniga aan ka mid ahay kugu ixtiraamayaan xiisana u yeelanayo wali inay daawadaan kaliya hal mid hadii aniga aan dhaho ama aan ka dhaho yani waxaan jeclaan lahaa in يعني xoog aad si saarto meesha adiga aad tagto muuqaalka adiga aad ka sameynayso in yar haba koobnaade yani meesha aad tagto meelaha ugu quruxda badan oo kale inta aad soo qabato oo aad isku dardarto hadaad doonto voice over aad saarto ama music aad saarto yani aad u qurux badnaysiin karo yani taas ayaan dhihi lahaa markaasi inaad ku darto muuqaaladaada aad ku kordhiso laakiin the rest aad saaxiib waxaad u qalantaa in dad badan maaragtay markaasi ay kugu xirmaan waanu ku salaamayaa channelka labaad wuxuu noqonayaa isagana gabar ayadana sidoo kale ah yani ayadana traveler ah oo maaragtay magaceeda la yiraahdo Maryan Abdi channelkeeda gabadhaasina sidoo kale waxa waaye maaragtay
waxay samaysaa iyadana sidoo kale waa way safartaa muuqaal ay kasoo samaysaa meeshii ay tagtay sheegtay inkastoo muuqaal aan arkay markaasi ay kaga hadlaysay in muuqaaladeeda ay u bedelayso luqadda Englishka taas laftirkeedana waa okay waayo dad badan kala unbay sii sameynaysaa haddii oo xitaa luqad walba adiga aad taqaano international aad wax ku sameyso marka ugu dambeysa ay adiga Soomaaliya tahay wixii adiga aad sameynayso dadka si kale ay tahay ay kula soo xiriiraana way ku soo gudbin karaan laakiin way adag tahay marka adiga oo safar aad galayso wixii hobbigaaga aad sameynayso muuqaal ka soo sameynayso intaas iyo dhan aad galayso Soomaali markii aad u keentana aysan daawaneen wixii ama yani ku sponsor gareyneen wax dib kaaga soo laabaneen adigna aad u baahan tahay wax ku sii riixo motivation ku siiyo waana wax aad u qaali ah nolosha safarka marka sidaa darteeda aniga waan ku taageersanahay go'aankeeda ah inay markaasi sidaas ay sameyso laakiin aad iyo channelkeeda iyo waliba qaabka muuqaalada ay u sameyso aad iyo ay qurux badan yihiin walina xitaa mar walbana waxa ka sii muuqato in maaragtay sheegeen improving ay sameynayso Marian adigana waa ku salaamay sidoo kale hore u soco channelkani aan ka dhigay koowaad oo ugu dambeeyo waa channel ay leeyihiin dhalinyaro Soomaali waliba wiil Soomaali joogo Muqdisho aan u maleynaa waliba inuu joogo muuqaaladiisana aad iyo aad aan u jeclahay waa very funny yani madadaalo badan oo sameeya channelkiisana ama magaciisa sida channelka ku qoran waxa waaye Lil Basto muuqaaladiisa waxa kamid ah Look that level Astaghfirullah Musa haram barada warwaxan ay wasilsinin gid Quraan ayo إنما الأعمال بالنيات wrong target sida arkayteenba waxa uu maaragtay uu ka sameeyaa yani English oo maaragtay qaab qosol badan markaasi muuqaalku u soo diyaariyo muuqaalka kaliya markaasi scriptiga ama wixii la dhihi lahaa kaliya ma diyaariyo wuxuu diyaariyaa qaabka qoraalkiisa oo maaragtay subtitle-kiisa wuxuu diyaariyaa maaragtay angaladiisa meesha wax sida looga isticmaalo anigoo rajeenayo markaasi yani film sameey ahaan inuu isticmaalayo telephone haddana sida iyo hawsha uu iska soo saarayo waxa kuwa cadeynaysa taas inuu isbuuci bahal muuqaal uu soo gasho sababtoo ah ka badan ma sameyn karo waayo adeegaya muuqaalka qaabka uu soo sameynayo in la sameeyo marka aad iyo aad runtii wiilkani ma aqaano meel markaasi oo xitaa contactigiisa aan ka helo qofka daawanayo muuqaalka waxa jeclaan lahaa hadii adiga contact la leedahay ama taqaano ina muuqaalkan aad u dirto waxaan jeclaan lahaa waliba wiilkaasi ina la xiriiro ma garanayo hadda waxay tahay laakiin waxaan jeclaan lahaa wali xitaa ina wax u hadiyeeyo wiilkaas marka Lil Basto aad iyo aad aan channelkaaga aan ugu xiranahay waxaan hubaa in dad badan markaasi ay hadaba kugu xiran yihiin oo walina aad tahay yani qof inta uu haysto in aad uga badan oo 10 jibaarkeedii ka sii badan markaasi u qalmo aad iyo aad u dadaasha fikir oo hal abuur leh la timaaday dad badan maaragtay markaasi aan kugu appreciate gareynayo waxa adiga aad sameynaysid runtii saddexdaasi channel markaasi aan ka soo hadlay hadda aniga qof kamid ah oo aan isla hadalnay oo cod ahaan aan isku maqalnay hadda wali ma jiro laakiin kaliya dadkaasi walaalahay Soomaaliyeed dhalinyartaasi waxaan arkaa waxa ay sameynayaan anigana mar walba waxaan jeclahay oo aan taageera qofka oo la yimaado ama ku socdo wado oo maaragtay unique ah different ah oo maaragtay meelaha dadka ay u badan yihiin oo fudfudud ahayn oo meel adag dooranayo hubana inuu markaasi uu wax ka soo saari karo marka dadkaasi dad badan ma yeeshaan inta badan waan ogsoonahay laakiin marka ay yani yeelanayaan waxay yeelanayaan dad markaasi u qalmo yaraantooda ku badan kuna miisaan leh waliba marka aad iyo aad ma santihiin dhamaantiina muuqaalkan daawashadiisa hadii aad ka heshay share dheh oo la wadaag asxaabtaada hadii ay tahay markii horeysay channelkeena muuqaal kamid ah aad daawatana soo dhawaaw halkan subscribe ka dheh muuqaaladeena horena qaar ka daawo marka ugu dambeyn waa walaalkiin saaxiibkiin oo idin kaga tagaayo sidaas iyo kori hal abuurkaaga